dhawey gurigiisu nagu qaabilay guud ahaan qodobadii aan soo qaadnay sida la sheegay bilaaw ay ahayday shir horu dhaca oo bilaaw ah oo mustaqbalka soo socdana shirar badan inay ku soo xigi doonaan aan rajaynayno ayuu ahaa qodobadii madaxweynaha aan isku soo qaadnay iyo wixii aan ka wada hadalnay way dheeraayeen waana badnaayeen laakiin waxaan rabaa inaan ku soo koobo kuwoodii ugu muhiimsanaay oo maxaan ku yiraahday ummadda Soomaaliyeedna ay u dhaga taagayso kana mid ah muxuu ahay waxyaabaha hortabinta leh oo u baahan in maxaan ku yiraahday si fiican ay dalkan ugu hagaago waxyaabaha dadka Soomaaliyeed bariyahan dabo dhan ay danaynayeen waxaa ka mid ahaa arrimaha doorashooyinka madaxweynaha soo qaadnay waqti badan aan gelinay si fiican aan uga hadalnay waxaanan isla soo dhaweynay in dalkaani doorasho ka dhacdo waqtigeedii ka dhacdo extension ama kororsiimo hay-adaha dastuuriga ah aanay jirin doorashaduna ay ka wada qayb galaan oo la doorto dhammaan hay-adaha dastuuriga ah ee talada dalka ku jooga doorasho la soo doortay dhammaantood waqtigeediina doorashadu inay ku dhacdo sida ay u dhacayso nooca ay noqonayso waa laga wada hadlayaa waana laga wada tashanaa doorasho raalli laga wada yahay dadka intiisa badan ay u dhan yihiin inay dalkan ka dhacdo laga tashaday la isla aqbalay ayaan ku soo ballanay qodobkaas madaxweynaha waa iska afgaranay wixii farsamo ah oo say u taallaa iyo sidee u soconay iyo sidee tahay sidee waa arrimo muxuu ahay dib aad looga lafaguri doono oo looga hadli doono waxaa kaloo madaxweynaha la soo qaadnay wixii khilaafaad iyo madmadow ee mugdi ee jiro oo dhan in wadahadal lagu dhammeeyo si gaara arrimaha dowlad goboleedyada qaarkood in laga wada hadlo lana dhammeeyo mustaqbalka haddii aan la yidhaahdo arrinta ku saabsan ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda muwaadiniinta mabda ahaan ayadana sidoo kale madaxweynaha isla garanay dastuurka jamhuuriyadda in la ilaaliyo dowladdu ay ilaaliso annaga siyaasiyiinteenna iyo shacabkuna ay dhinacooda ka ilaaliyaan ayagana dastuurka waxa uu farayana ay dhowraan arrimaha ammaanka aad iyo aad ayay muhiim u ahaayeen waydana waqti badan aan gelinay waxaan isla afgaranay isla garanay amniga inaan la siyaasadaynin ciidamada amniga iyo hay-adaha amniguna ay siyaasadeysmin siyaasadda ay ka madax bannaanaadaan siyaasad aan loo isticmaalin siyaasiyiintuna haddii khalad farsamo meel uu ka dhaco aanay siyaasadaynin oo aan haddii askari qaldamo iyo qof qaldanta ay jirtaahay oo qalad samayso amniga ka shaqeeyahay aanan la siyaasadaynin ciidamada iyo hay-adaha amniguna siyaasadda ay ka madax bannaanaadaan oo aan loo isticmaalin qaab siyaasadeed ayadana aad iyo aad ayaan u dul istaagnay waana isla garanay waxaa kaloo oon madaxweynaha aan ka hadalnay isla soo qaadnay iyadana arrimaha ku saabsan gobolka banaadir iyo dadka ku nool in duruufahooda dowladdu ay wax ka beddesho la hagaajiyo la qurxiyo maxaan ku yidhahda aad looga wada hadlo sida ay muxuu ahay ku fuli karaan dadka gobolkan degan xuquuqdooda ka muwaadiniin ahaan xaqooda matalaadda ee siyaasadda dhammaan madaxweynuhu inuu raalli ka yaho ogolyahu noo sheegay annaguna waa soo qaadnay wixii farsamo ah iyo sida ay wax u dhacayaan iyo sida ay ku suurtogelayso iyo waqtiyada ay boos suurtagalka ay waxaasoo dhan kala dhici karaan intaba waa arrimo farsamo oo mustaqbalka iyo shirarka dambe iyo kooxo farsamooyin ah ay ka shaqayn doonaan ayadana guud ahaan waxaan isla garanay isku soo raacnay dalkan inuu dagaal ku jiro niman cadow oo shabaab la yidhaha ummaddana ay dib ku hayaan in loo midoobo la dagaalanka al-shabaab dowlad iyo shacab iyo xisbiyo iyo siyaasiyiin iyo dhammaan isku dhinac iyadoo saf lagu jiro isku dhinac in looga soo jeesto la dagaalanka al-shabaab
cadow waaye cid gaaruu cadow u yahay ma jirto shabaab dadka soomaaliyeed dhamuu cadow u yahay wax kasta oo shabaab jiritaankiisa iyo joogistiisa iyo howlihiisa fududaynaayo magac u yeelaayo kor u qaadaayo ammaanaayo dacaayad iyo barobaganda u samaynaayo waa cadow ayaguna marka shabaab in laga wada shaqeeyo dalka sidii looga xoray lahayne waa isla soo qaadnay dadka soomaaliyeed oo dhan arrintaas inay istaagaan guud ahaan jawiga ay wadahadalkaas ku dhacay waa fiicnaay